asxaabta haddaad channelka ku cusub tahay ama maanta aad soo booqatay haddaba subscribe noo saar muuqaalkana like noo saar kusoo dhawo sheekadani waxay igu dhacday anigoo jiro 17 sano runtii waxaan lahaa asxaab aad u fara badan oo markasta aniga i caawiyo oo ila shaqeeyo asxaabta aniga ayaa hogaamiye u ahaa waxaan u sheegay inaan tagayno guriga wadada geeskiisa saaran wadadan xoogaa isku jiraan gurigaas wax badan lama soo degan asxaabta u sheegay balse guriga markaan kor ka aragnay wuxuu ahaa guri aan la soo degan muddo 15 sano aadna wuu burbursanaa kadib saaxiibkay wuxuu yidhi saaxiib aniga ayaan guriga dhankaas ayaan hayaa balse guriga markaan aragnay meel laga gala ayaa noo muuqatay saaxiibkayn wuxuu yidhi meeshaas ayaan ka galaynaa kadib albaab hoose ayaa jiray albaabka kore wuu qufulnaa albaabka hoose ayuu markaas ku istaagay balse lugta ayaa ugu dhigay wax kadibna markii dambe wuu jabiyay waana u fiicnaatay lugtii markaas guriga ayaan soo galnay guriga balse markaan ilinkiisa aan ka soo galnay waxaan noo soo oray hilib bilaadan iyo shiir iyo dhiig meeshii guriga dhan wuu urayay runtii asxaabteeda dhan way la socdeen markaas balse waxaan aragnay qaanadii biyaha iyo waxa la gelinayay flinjeerka inay wixii oo dhan ay gubteen bombalayaashii dhammaan dharka jooriyaasha wixii dhan way gubteen macal gambaradi marka waxaan ogaaday gurigan inuu qof maanta uu ka shaqeysanayo ama uu joogay anigana zaid ayaa walwalsan saaxiibtii wuxuu sheegay kullay gurigan qof ayaa joogo runtii markaan qolka jiifka soo galaaba kasii badaran waxaan arkay wax dhiig tiftifqaayo oo qof hadda lagu dilay camal runtii aniga ur ayaana joogi waayay meeshaas ayaan marka kuma tagay kadib shanqar ayaan soo maqlay runtii kasoo yeeraysa dhanka albaabka asxaabteeda ayaa markaas ila joogtay anigana waxaan arkay qof soo galay balse aad ayaan markaas dhammaanteen u naxnay runtii waxaan aragnay qof timo badan oo nin weyn oo soo galay kadib wuxuu yidhi oryooyo gurigayga ayaa maanta soo gasheen inay milata gacanteeda ayaa gaajo la cunay balse maanta ninka ayaa ii joogo saa gacanteeda gaajada ugu cunay waa inay idin cunaa gacanteydina waa qof uma deynayo kadib runtii aad ayaan markaas u argagaxay kadib waxaan dhahay ninkan ma feertaa balse aad ayaan ii soo fiirinayay runtii waan ka soo cararay asxaabteeda xataa waan ka soo cararay waxaan soo aaday dhankaas iyo banaanka balse banaanka markaan soo aaday gadaal ayaan fiiriyay waxaan arkay asxaabteeda oo markaasi ay ila soconin kadib aniga gurigayga ayaan imaaday walaashay waxay ii sheegtay arrinta jirto waxaan dhahay mar dambe gurigaas iyo waxaas ma aadi doono saas ayay sheekada ku dhamaatay markaas ayay ku dhamaatay asxaabta haddaa markaasi aad channelka dhan ka heshay video kasta suu kugu soo dhaco waa inaad subscribe saarataa muuqaaladana la soco muuqaalka haddaana ka heshay iyo muuqaal kasta soo dhigno like noo saar share markasta noo dheh asxaabtaada u dir la wadaag maasha Allah kusoo dhawo channelka